بسم الله الرحمن الرحيم وصبح نما أحد لبية طبعا كبشة أبريل سنة كلابكن لباتن يلح أو كوبهجن أفر يلباتن كبشة شوال سنة كن أفر بقول أفرتن يتضبع تاريخ الهجرية كسو دوادا مركله يبرامجكي حولشة ورركا قضبدا ساك برامجكا عن إذن كوهينو وحا كمدا وعيدمada ilaalada kacaanka islaamiga ee Iran oo wacad ku maray in ay gubi doonaan markab kasta oo Mareykanku uu leeyahay oo isku daya in uu soo galo marin biyoodka Hormuz arrintan waxay ku soo aadaysaa iyadoo shalay maraakiib Mareykanku uu leeyahay laga raacdeeyay aagaasi inkastoo Mareykanku ay ku andacoonayeen in maraakiibtaasi ay ku hawlan yihiin hawlo la xiriira ka saarista marin biyoodka Hormuz miinooyin halkaasi la dhigay sidoo kale barnaamijka waxaynu ku eegaynaa warar la xiriira wadahadaladii Mareykanka iyo Iran uga socday magaalada Islamabad ee waddanka Pakistan oo xog cusub ay ka soo baxayso warbixino sirdoon oo Mareykanka laga helay ayaa muujinaya in Shiinuhu gantaalo u dirayo Iran arrintan waxaa digniin ka bixiyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump Netanyahu oo ku faanay guul ay ka gaareen dagaalkii ay la galeen Iran laakiin warkaasi waxa si adag u beeninaya una sheegaya in aan wax guul la gaarin hogaamiyaasha mucaaradka Israa'iil oo ka daba qaatay Netanyahu dagaal dhimasho dhaawac sababay oo dalka Yemen ku dhaxmaray xogaga Ansarullah iyo sidoo kale dowladda caalamka aqoonsan yahay dagaaladan ayaa ka dhacay gobolka Ticis dhimasho dhaawac ay sababeen dhammaan wararkan iyo weliba qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordhay intayna hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka xulashada wararka marka la daawadayaal si aad ula socoto una hesho wararkan barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka waanu imaan doonaa wadahadaladii Mareykanka iyo Iran uga socday magaalada Islamabad oo xogo cusub ay soo baxayaan iyo sidoo kale wararka kale ee aan idin hayno laakiin waxaynu ku bilaabaynaa saaka dhanka Yemen iyadoo lagu soo ramayo iska horimaadyo culus inay dhexmareen ciidamada dowladda Yemen ee caalamku aqoonsan yahay iyo sidoo kale dagaalamayaasha ururka Ansarullah ee loo yaqaan Xuutiyiinta dagaaladan ayaa lagu soo ramayaa inay ka dhaceen gobolka ku yaal koonfurta galbeed ee Ticis waxaana la sheegay in laba ka mid ah askarta dowladda la dilay halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen bayaan uu soo saaray taliska guutada 35aad ee ciidamada gaashaaman ee waddankaasi Yemen gaar ahaan gobolka Ticis ayaa bayaankaasi oo lagu daabacay bartooda Facebook waxaa lagu sheegay in ciidamada guutada 35aad ay iska caabiyeen weerar xooggan oo sida bayaanka lagu yiri maleeshiyada Xuutiyiinta ay ku qaadeen fariisimadooda oo ku yaala jeeda al-Salu ee baadiyaha gobolka Ticis dagaalka ayaa la isku adeegsaday noocyada kala duwan ee hubka waxaana u dhacay shalay galinkii dambe isagoo socday ilaa iyo xalay fiidkii waxaana lagu sheegay warka ka soo baxay ciidamada dowladda Yemen inay ku guuleysteen inay jabiyaan xogagii weerarka soo qaaday inkastoo aysan jirin cid madax bannaan oo xaqiijin karta sheegashadaasi sidoo kale ma jiraan wax faalaah oo degdeg ah oo ka soo baxday xogaga Xuutiyiinta oo ku saabsan iska horimaadyadani inkastoo mararka qaarkood ay dhacaan iska horimaadyo hubaysan Yemen waxaa ka jirtay tan iyo April 2022 xabajoojin lagu soo afjaray dagaal socday in ka badan 11 sano ka hor waxaana la sheegayaa in uu dhaxayay ciidamada dowladda caalamka aqoonsan yahay iyo dhaqaaqa Ansarullah oo gacanta ku haya gobollo iyo magaalooyin ay ka mid tahay caasimadda waddankaasi ee Sanca gaar ahaan dhanka waqooyi kuwaasi oo halkaasi gacanta ku hayay ilaa iyo 21 Sebtembar 2014 dagaalkan ayaa waxa uu burburiyay inta badan qaybaha kala duwan ee bulshada ee waddanka Yemen waxaana uu sababay mid ka mid ah dhibaatooyinkii bini'aadantinimo ee ugu darnaa dunida iyadoo ay socdaan dadaalo qaramada midoobay garhayan ay ka tahay oo lagu doonayo in geedi socodka nabadda lagu sii ambaqaado xiisadda ka taagan marin biyoodka Hormuz ayaa sidoo kale waxaa la sheegayaa in ay tahay
arrimaha ugu waaweyn ee saameynaya gobolka iyadoo arrinta Yamanna lagu iloobayo xaaladaasi oo saameyn ku yeelatay xaaladaha iminka ka taagan waddanka Yaman. Hagaag intaan u gudbin wararkii ugu dambeeyay ee wadahadallada Pakistan uga socday Iiraan iyo Mareykanka waxaynu ka hormaraynaa war weyn oo habeennimadii xalay ay soo saareen ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ee Iiraan kuwaasi oo digni ku bixinaya in ay weerari doonaan maraakiibta Mareykanka haddii ay isku dayaan inay soo gudbaan Mareykanka Hormuz. ciidamada ayaa hanjabaadooda waxay ku sheegeen inay si adag uga bixin doonaan fal adag tilaabo kasta oo markab kasta oo dagaal uu ku soo galo marin biyoodka Hormuz, iyadoo arrintan ay ku soo aadayso xilli xaaladda dhanka diblomaasiyadda iyo tan xiisadaha siyaasadeed ay taagan yihiin. ciidamada badda ee IRGC ayaa bayaan ay la wadaageen wakaaladda wararka Tasniim ee laga leeyahay waddanka Iiraan waxay ku sheegeen inay leeyihiin awood buuxda oo si caqli leh ay ku maareeyaan marin biyoodka Hormuz, isla markaasina ay gol yihiin oo kaliya maraakiibta rayidka inay ka gudbaan halkaasi iyadoo lagu salaynayo shuruudo gaar ah. sidoo kale waxay beeniyeen sheegashadii sheegaysa in Mareykanka maraakiib ay leeyihiin ay ka gudbeen marin biyoodka Hormuz. telefishinka Iiraan ayaa soo xigtay bayaan ka soo baxay ciidamada badda ee ilaalada kacaanka islaamiga oo lagu sheegay in isku day kasta oo ay sameeyaan maraakiib military oo damca inay soo galaan Mareykanka Hormuz lagu wajihi doono jawaab adag, isla markaasna Iiraan ay si buuxda ay halkaasi gacanta ugu hayso. bayaanka ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in aan la ogolaan doonin gebi ahaanba wax markab dagaal oo halkaasi ka soo gudba Mareykanku ha lahaado ama cid kale. dhinaca kale waaxda sirdoonka ee ciidanka IRGC ayaa waxay sheegtay in la xiray 102 wakiilada la xiriirinayo sida hadalka loo yiri hay'adaha sahyuuniyadda ee Mareykanka kuwaasi oo lagu qabtay gobolka Gilan ee waqooyiga dalka. sidoo kale 2 qof oo lagu eedeeyay inay xiriir la leeyihiin hay'adaha sirdoonka ee Israa'iil iyo Mossad. hay'adda sirdoonka Israa'iil ee Mossad ayaa lagu xiray gobolka Semnam ee bariga Tehran ku yaala. hagaag haddaba markan waxaynu eegaynaa wararkii ugu dambeeyay ee wadahadallada Mareykanka iyo Iiraan wufuudda ka socota uga socday magaalada Islamabad. wadahadallada waxaa la sheegay inay ahaayeen wadahadallo adag oo dhowr iyo 10 saacadood oo xiriir socday. markii 3-4 saac 5 saac la isku jilba jabo ayaa waxaa la aadayaa wax yaroo nasasho ah kadibna la soo laabanaya. wadahadallada markii hore waxaa leeyahay waxay ahaayeen kuwa ay kala dab qaadaysay Pakistan, laakiin markii dambe waa la isku hor yimid. diyaaradan ayaa waxaa la sheegayaa in ay ka timid habeennimadii xalay waddanka Iiraan, inkastoo wararka qaarkood sheegayaan diyaaraduhu inay yihiin 3. warar laga helay dowladda waddankaasi Iiraan mas'uuliyiin ka tirsan ayaa waxaa la sheegayaa in diyaaradahani ay sideen khubaro arrimaha militariga, kuwa dhaqaalaha iyo kuwa siyaasadda oo loogu talagalay inay qayb ka noqdaan wadahadalladan, inkastoo warar kalena ay sheegayaan in diyaaradahan ay sideen muwaadiniin Mareykan ah oo ku xirnaa waddanka Iiraan gudihiisa oo sidoo kale dhalashada Iiraan haystay kuwaasi oo Mareykanku ay codsanayeen in la sii daayo. waxaana la sheegayaa arrimaha shuruudaha in arrintaasi ay ka mid ahayd. dhinaca kale waxay leeyahay Mareykanku waxyaalaha ay aqbaleen waxaa ka mid ah in la fasaxo lacagta Iiraan ka xayirnayd iyo sidoo kale in duqeynta laga joojiyay magaalada Beirut ee caasimadda waddanka Iiraan. taasna waxay caasimadda waddankaasi Lubnaan. taasna waxay keentay baa la sheegayaa in markii ugu horreysay ay hor fariistaan wafuudda Mareykanka iyo Iiraan tan iyo 1979 markii uu curtay kacaanka islaamiga. wararku sidoo kale waxay sheegayaan in arrintan ay ka dhalatay inay isgacan qaadaan oo ay salaamaan gudoomiyaha baarlamaanka Iiraan Maxamed Baari Khalibaaf iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka JD Vance sida ay sheegayaan warbaahinta Mareykanka iyo waliba tan Iiraan. sidoo kale wakaaladda wararka ee Tasniim ayaa waxay soo xigatay ilo xogaal ah oo sheegaya in weli isbedel muuqda aysan jirin, inkastoo meelaha qaarkood horumar laga sameeyay, laakiin haddana waxaa la sheegay in wadahadalladu ay ahaayeen kuwo adag
welina meelaha qaarkood laysku maandhaafsan yahay sidaas darteed ayaa waxaa leeyahay waxaa layskula gartay in maanta oo axada wadahadalladu ay sii socon doonaan tani waxay ka macno tahay in ilaa hadda si dhaba aan loo gaarin heshiis iyadoo wararkuna ay sheegayaan arrimaha ugu waaweyn inay ka mid tahay arrinka marinka hormuus iyo lacagta iiraan ay ka qaadayso wararka qaarkood waxay leeyihiin dhowr sano ayaa loo ogolaaday iiraaniyiinta ilaa 8 sano ilaa 10 sano in ay qaataan lacagta maraakiibta oo ka soo gelaysa ilaa $100 bilyan laakiin iiraaniyiinta waxay diidan yihiin in la yiraahdo muddo kumeel gaar ah ayaad maamulaysaan marinkan waxaana ku adkaysanayaan in ayagu ay xaq u leeyihiin marin biyoodkan isla markaas aysan jirin cid kala gorgortamayaan wararka qaarkood waxaa ka mid ah in maraykanku ay yiraahdeen aan idinla maamulno marinka iiraan arkaas way diiday dabcan waxay u muuqataa ayaa leeyahay wadahadalladu in maanta la isku soo laaban doono subaxnimadan saakay oo axada isla markaasna la filayo in wax uun ay ka soo baxaan dhanka Pakistan ayaa waxa la sheegayaa inay wado dadaal dhanka diblomaasiyadda oo aad u ballaaran iiraaniyiintana waxa la sheegayaa khubaradoodii oo dhan in meesha ay joogaan isla markaasna ay ku adkaysanayaan in shuruudahooda la aqbalo arrimahan waxaa isna xalay ka hadlay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu ku andacooday in Mareykanku ay si military ahaan uga adkaadeen Iiraan oo si hadalka u dhigay isagoo ku eedeeyay Tehran in ay digtay miinooyin badeed marinka Hormuz Trump wuxuu sheegay in Iiraan ay gaari karto ama aysan gaari karin heshiis laakiin waxa macnaha Mareykanka aysan u sameeyeen wuxuu sidoo kale sheegay in ay burburiyeen ciidankii badda ee Iiraan isla markaasna ay baabi'iyeen 150 markab oo si hadalka u dhigay cid madax banaan oo xaqiijin karta ma jirto sheegashadiisa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu yiri waxa la dilay hogaamiyihii Iiraan Ayatollah Ali Khamenei dalkan wuxuu xukumayay biyuri sanado badan hadda wuu dhintay buu yiri wuxuu xusay in Mareykanku uu leeyahay maraakiib miinooyinka ka saari karta oo baari karta marinka Hormuz isla markaasna waxa uu sheegay in wadahadallo qoto dheer ay leeyihiin Iiraaniyiinta wuxuu yiri Mareykanku dagaalka ayuu ku guuleystay xaaladdu haddii ay isbedeshana waynu arki doonaa sidoo kale wuxuu uga digay Shiinaha inay la kulmi doonaan dhibaato adag oo si hadalku u yiri haddii ay hub u diraan Iiraan warbixin arrintan la xiriirtana qaybta dambe ee barnaamijka ayaan idinkugu haynaa waayahay dhanka aynu eegno koonfurta Lubnaan iyo isku horimaadada u dhaxeeya Israa'iil iyo dagaalamayaasha ururka Xisbullah habeennimadii xalay ururka Xisbullah war uu soo saaray waxa uu sheegay in ciidamo Israa'iiliyiin ah ay ku beegsadeen dhowr deegaan oo ku yaala koonfurta Lubnaan waxaana ka mid ah magaalada Bint Jbayl oo ku taal bariga Khiyam iyo sidoo kale tuulada la yiraahdo Rishaf ee ku taala koonfurta waddankaasi ee Lubnaan wahagaag wixii ku soo kordha arrimahaasi iyo wixii ku soo kordha wadahadaladii soo gabagaboobay oo warar ay soo baxayaan kala duwanna intaana u gudbin qodobadii iyo weliba war ku saabsan Netanyahu oo ku faanay Iiraan inay u geysteen jugcus oo guul ay gaareen laakiin hogaamiyaasha mucaaradka Israa'iil ayaa isna waxay leeyihiin guul aad gaartay ma jirto adiga ayay darro kugu timid oo dhanka istiraatiijiyadda ah Shiinaha ma hub u dirayaa Iiraan warbixin xasaasi ah arrinta ku saabsan way noo soo socota waan isku soo laabanaynaay qadar xayeysiina soo dhawaada mar kale daawadayaal wali waxaad la socotaan barnaamijkii xulashada oo subaxnimadan axadda toos idinkaga imaanaya istuudiyaha iyaga koowaad barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan bogagga bulshada ee internetka sida YouTube-ka, Facebook-ka, Twitter-ka iyo Telegram-ka warbixino qoraal ah warar faclooyin iyo macluumaadyo kale waxaad ka heli kartaan barta internetka aynu ku leenahay oo ka dhigo wehelkaaga wararka wahagaag bal aynu eegno wixii ugu dambeeyay wadahadaladii Islaamabad haddii ay wax ka soo kordheen wakaaladaha wararka haddaynu isha marino macluumaadka ugu dambeeya ilaa iyo hadda wadahadaladan ka soo baxaya ayaa waxaa la sheegaya inaysan jirin wax weyn oo ilaa iyo hadda la isku raacay wakaaladda wararka ee Faris ayaa waxay sheegtay in inkastoo la isku raacsan yahay in wadahadaladu ay sii socdaan haddana waxaa la sheegayaa inaysan jirin wax rasmi ah oo ilaa iyo hadda la isku raacay isla markaasna waxaa la sheegay in lagu ballamay maalin kale oo dheeraad ah wadahadalka in lagu daro taasoo macnaheedu uu yahay in maanta oo axada mar kale wadahadaladu ay sii socon doonaan waa tahay Mareykanku wuxuu leeyahay Shiinaha Iiraan gantaalo iyo hub u diraya arrintan waa arrin weyn
waana maqlayna madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo digni ka bixinaya arrintaasi haddaba aynu eegno wararkii ugu dambeeyay amuurtan gaar ahaan warbaahinta Mareykanka waxa ay ka qortay hagaag saacadihii ugu dambeeyay waxaa la sheegayaa war uu baahiyey telefishinka CNN ee laga leeyahay Mareykanka isagoo soo xiganaya ilo wareedyo dhanka sirdoonka Mareykanka ah in Shiinuhu uu isu diyaarinayo in toddobaadyada soo socda uu u diro Iiraan nidaamyo cusub oo difaaca hawada ah warka CNN-ka uu tabiyay ayaa waxaa lagu sheegay in 3 sarkaal oo xoggaal ah ay sheegeen kadib qiimeyn sirdoon in la xaqiijiyay in hubkaasi Shiinaha uu qorsheeyay inuu gudbiyo Iiraan ay ka mid yihiin nidaamka gantaalada lidka diyaaradaha ee garabka laga rido kuwaasi oo loo yaqaan Manbad iyagoo xusay in qatar ay ku yihiin diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ayna ku ahaayeen xitaa intii lagu jiray dagaalkii 5 toddobaad socday ee Iiraan ay la galeen Mareykanku ila wareegyada waxay tilmaameen in sirdoonka uu xaqiijiyay in Iiraan ay doonayso inay ka faa'iideysato xabajoojinta si markaasi ay dib isugu dhisto awoodeeda hubka wasiir halka loo dhigay iyadoo kaashanaysa saaxiibadeeda dibadda ee muhiimka ah CNN waxa uu leeyahay ila wareegyo kale ayaa waxa laga soo xigtay inay jiraan calaamado muujinaya in Shiinuhu ay ka shaqaynayaan in hubkan loo mariyo Iiraan dal saddexaad si loo qariyo meesha dhab ahaantii uu ka yimid iyo meesha uu ku socdo tilabadan ayaa waxaa loo arkaa mid kicina sida Mareykanku ku doodayaan iyadoo loo tixgelinayo ku dhawaaqitaan Beijing ay ku dhawaaqday in markaa ay ka hor imaanayso qorshaheedii ahaa inay gacan ka geysanayso heshiiska xabajoojinta kaas oo aan cagacda ku taagnayn labada dhinac ayaa waxaa la sheegayaa in ay markaasi xiriirkoodu ahaa mid aad u fiican sanadihii la soo dhaafay waa Shiinaha iyo Iiraan wararkan waxay ku soo beegmayaan iyadoo la filayo toddobaadii gudahood in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu booqasho ku tago waddankaasi Shiinaha gaar ahaan magaalada Beijing si wadahadalkaasi ugula yeesho madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping laakiin warkan si adag ayaa Shiinuhu u beeniyay afayeenka safaaradda Shiinaha ee magaalada Washington ayaa beeniyay in dalkiisu uu hubsiyo Iiraan isagoo sheegaya in macluumaadka arrintan la xiriira ay yihiin kuwa qaldan isla markaasna Shiinaha uusan hubsiin dhinac ku lug leh colaad afayeenka ayaa waxa isagoo hadalkiisa ambaqaadaya uu yiri Shiinuhu isagoo ah dal weyn oo mas'uul ah wuxuu si joogto ah ugu hoggaansamaa waajibaadka caalamiga wuxuuna ku boorinayaa dhinaca Mareykanka inuu ka fogaado eedamo aan sal iyo raad toona lahayn oo la isku xirayo arrimo xunxun afayeenka ayaa sidoo kale wuxuu muujiyay rajada Beijing ah in dhinacyada ku lagtay colaadan ay sameeyaan dadaalo dheeriya oo lagu dejinayo xiisadda ila dhanka diblomaasiyadda oo Shiinaysa ayaa waxa ay horaantii toddobaadkan sheegeen in tan iyo markii uu qarxay dagaalka u dhaxeeya Mareykanka iyo Israa'iil oo dhinaca iyo Iiraan oo dhinaca kale ah Beijing ay ka shaqaynaysay sidii loo gaari lahaa heshiis lagu dejinayo xiisadda oo lagu joojinayo dagaalka si kastaba ha ahaatee ila Mareykan ah ayaa u sheegay telefishinka CNN in Shiinuhu uu ku doodi karo in nidaamyadan ay yihiin kuwa difaac halkii ay ka ahaan lahaayeen kuwa weerar si markaasi ay ugu sii socoto taageerada Tehran isla markaasna ka duwanaato tan Ruushka ila wareegyada Mareykanku waxay sidoo kale xuseen in Moscow ay si joogto ah u taageertay Iiraan intii uu socday dagaalku iyadoo siisay baa la yiri xog sirdoon oo u sahashay Iiraan in ay beegsato ciidamada iyo hantida Mareykanka ee gobolka Bariga Dhexe Iiraan waxay xiriir dhanka militariga iyo mid dhaqaalaha oo wanaagsan ay la leedahay Shiinaha iyo Ruushka Tehran waxay si weyn uga caawisay Ruushka dagaalka Ukraine iyadoo siisay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn gaar ahaan diyaaradda Shaahid halka sidoo kale Shiinuhu uu ka iibsado saliid aad u fara badan inkastoo cunaqabatayn adag ay saaran tahay waayahay xagga Israa'iil aynu eegna haatan Netanyahu wuxuu ku faanayaa dagaalkii Iiraan lagu qaaday inuu guul gaaray laakiin cid kaleba iska daayay Israa'iiliyiintii mas'uuliyiinta ahaa ayaa waxaa noo sheegaysa waxba kama jiraan haddaba aynu eegno marka hore ra'iisul wasaaraha Israa'iil isagoo xalay hadal jeediyey wuxuu leeyahay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa wuxuu ku andacooday in Iiraan ay aad ugu dhaweyd inay hesho hub nuclear ah taasoo uu sheegayo in ay dhalisay Israa'iil inay go'aansato inay weerar ku qaado bishii February si looga hortago qatartaas Iiraan Netanyahu wuxuu xusay in haddii Israa'iil aysan laba jeer weerari lahayn
bilihii ugu dambeeyey iiraan markaas jamhuuriyadda islaamiga ay yeelan lahayd hub nuclear wuxuuna xusay in sirdoonka Israa'iil uu helay xog muujinaysa in Iiraan ay qorsheynaysay in ay u bedesho uranium-ka la tayeeyay hub nuclear markii aynu helnay xogta sirdoonka isla markiiba tilaabo ayaan qaadnay ayuu ku andacooday Netanyahu ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa intaasi ku daray in bilo yar kadib la helay xog kale oo muujinaysa in Iiraan ay doonaysay in ay ballaariso barnaamijkeeda gantaalada iyo nuclear-ka isla markaasna ay ku aasto dhulka hoostiisa si qoto dheer Netanyahu wuxuu sheegay in Israa'iil ay dishay 8 saynisyahano nuclear oo ka shaqeynayay arrimahan in laga dhigo uranium-kaasi hub waxaana markaasi uu sheegay in intii lagu jiray hawlgalka ugu magacdaray guuxa libaaxa uu burburiyay qalab badan oo muhiim u ah barnaamijka uranium-ka Iiraan wuxuu sidoo kale tilmaamay in ujeedada Israa'iil aysan ku koobnayn oo kaliya burburinta barnaamijyadaasi laakiin wuxuu yiri waxaynu doonaynaa in aan weeqno nidaamka Iiraan si loo gaarsiiyo heerkii ugu liitay tan iyo markii uu curtay kacaankaasi 1979kii waa sida dalka uu dhigay inta marka laga gudbo hogaamiyaasha mucaaradka Israa'iil ayaa iyaguna xalay waxay ka daba qaateen Netanyahu daqiiqada gudahood markii hadalkaasi uu sheegay waxayna ku dhaleelayaan in aysan jirin wax guula oo dagaalka uu ka gaaray waxay ku eedeeyeen inuusan xitaa gaarin ujeedooyinka dagaalka ee uu dejiyay hogaamiyaha xisbiga dimuqraadiga Yair Golan ayaa bartiisa baraha bulshada waxa uu ku qoray in Netanyahu cadaadis ku jiro sababtoo ah wuxuu yiri wuxuu og yahay in aan la gaarin yoolalka dagaalka markaad guulaysato oo dagaalka aad ku adkaato uma baahnid inaad dhowrkii maalmoodba mar ku dhawaaqdo guushaas ayuu yiri Yair Golan sidoo kale hogaamiyaha mucaaradka Yair Lapid ayaa isna waxa uu sheegay in Netanyahu uu mar kale isku dayayo inuu ku faano guulaha ciidanka si dadka ay u ilaawaan buu yiri fashilkiisa guud wuxuu yiri ma uusan gaarin mid kamid ah ujeedooyinka dagaalka ee isaga uu qeexay Lapid isagoo hadalkiisa si wata wuxuu yiri dhammaan shacabka Israa'iil waxay aaminsan yihiin adeegyada amniga waxayna sugayaan hoggaan awood u leh in uu dagaal ku guulaysto halkii uu ka xadi lahaa buu yiri lacagta muwaadiniinta Israa'iil xilli ay ku jiraan arrimo gabaadyada si ay uga gabadaan buu yiri duqeymaha dhulka hoostiisa warkaasna xagga Israa'iil wararkii ugu dambeeyay naga soo gaaray ayuu kamid ahaa aynu mar kale dib ugu laabano magaalada Islamabad oo wararku ay soo tarayaan lagu soo warramaya dhanka dowladda Pakistan in war laga helay waxaa la sheegayaa in Pakistan ay sheegayso wadahadallada inay ahaayeen kuwa toosa ilo wareed dhanka diblomaasiyadda oo reer Pakistan ayaa u sheegay warbaahinta in wadahadalladan ay ahaayeen kuwa muhiim ah waxaana la sheegay in ay ka mid ahayd soo jeedinta sidii xal loogu heli lahaa arrinta marinka Hormuz Pakistanna waxay soo jeedisay baa la yiri in la sameeyo ciidamo isku dhafan oo kormeera marinka Hormuz laakiin Iiraaniyiinta ayaa waxa la sheegay arrintaasi in ay gabi ahaanba ku adkaysanayaan inaysan aqbalayn wakaaladda wararka ee IRNA ee laga leeyahay waddanka Iiraan oo ayana soo xigata ila wareedyo ayaa waxa la sheegayaa in hadda wadahadalladu ay u gudbeen weji qobaradu ay kulmayso oo laga soo gudbay dhankii arrimaha diblomaasiyadda macnaheedu markaa waxaa lagu sheegay inay tahay in ay suurtagal tahay isfaham in la gaaro waa tahay wixii ku soo kordha waynu arki doonaa inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii xulashada wararka waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir aynu barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa nabadgelyo